الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. الآية. ولا ليال عاو isniini soo gelayso bisha shawaalna ay 3 tahay oo aan soo fariistay telefishinka Dacwa TV xaruntiisa Nairobi. walaalaha muslimiinta ah ama Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan waxaan leeyahay ciid wanaagsan. waa idinka tahniyeynayaa ciiddii weyneyd oo Ilaahay subxaanahu wa tacaala ina waafajiyey haleelitaankeeda iyo inuu Ilaahay bishii Ramadaan caafimaad iyo cibaado Ilaahay noogu soo gabagabeeyey. intaa kadib qadar yaroo kooban baan caawa telefishinka usoo fariistay Dacwa TV oo ku saabsan bishii Shawaal curashadeedii ama aragtideedii khilaafkii ka dhacay oo runtii bulshaweynta Soomaaliyeed ama shacabka Soomaaliyeed laga shaki geliyey bishii Shawaal aragtideedii inay sugnaatay habeenkii Sabtida. caawa marka oo isniin ah waxa isoo fariisiyey goobtani runtii oon ka aamusi waayey markaanu aragnay caawa bisha intay la eg tahay iyo wixii ka horeeyay maanta iyo shalay buuq iyo wareer iyo wixii ummadda dhex marayay si saxa dad u faafiyey war ah iyo si khaldanba ummadii xaqiiqatan way wareertay. marka caawa waxaan musaahameynayaa sidii caadada ahayd kalimo kooban ku musaahameynayaa oo la wadaagayaa walaalada aragtida bisha Ramadaan bilowgeeda iyo dhamaadkeeduba nabigu sallallahu alayhi wa alihi wa sallama xadiis baa kaga sugnaaday nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam oo nabigu waa nala hadlay nagagama tagin wax la'aan daliil xoogan baa yaal oo noo yiilay oo ah nabigu inuu yiri xadiisu Abu Hurayra oo Bukhari iyo Muslim ba ay wariyeen oo saxiixeenka ku sugan: suumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. صحيح البخاري وحورنا حديث صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غبي عليكم وبالباء بأخرنا فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. صوموا لرؤيته أركتك صوما وأفطروا لرؤيته أركت بشنا كفر وكو أفرو كعيدا فإن غبي عليكم هدي لإذن كتيدود أركي ويسان بشي فأكملوا عدة شعبان بش شعبان لما يستير 30. والرواية البخاري رواية مسلم وحكا قدوان يا إمام مسلم بخاري صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته وكم ذي سيهن انت أركتي كصومة أركتنا كفر فإن غمي عليكم هاد بالميم رواية مسلم تاي فإن غمي عليكم الشهر بشا هدي لا إذن كقريو إذن كقرصنتود أركي ويسان فعدوا 30 صدن كامل يالو لما يستيروا ترصد صدن وحديث أبو هريرة صحيحين كانوا كجراء
riwaayadan dambe ayaa weliba caamsii ah oo odhanaysa fain gummiya calaykum shahra, bishay noqotoba, ama bishii shacbaan ha noqoto ama bisha ramadaan ha noqoto, haddii aad arki weysaan facuddu 30 sodomaysta bishii oo kaamil yeela. waa bukhaari iyo muslim. muslimiinta marka bisha ramadaan u soo gashaa waxay ugu soo gashaa laba qaab. waa marka koowaad horta bishii shacbaan 30 inay ku dhammaato, ama iyadoo 29 ku dhammaatay in bishii la arko. labadaa waji bay bisha ramadaan ku dhalataa, ama 30 shacbaan inay ku dhammaato, ama iyadoo 29keedu tegay in bishii ramadaan la arko oo hilaalkii cirka ka muuqdo, iyadana waa lagu soomaa. haddaba annagu ka muslimiin oo bishii ramadaan u soo dhammaatay, bisheenii ramadaan waxaanu ku soo soonnay shacbaankii oo noo dhammaystirmay. labadii qayb mid ka mid uu xadiisku sheegaya. habeenkii maalintii 29 ay dhammaatay baanu bishii raadinay, waanu weynay. halkaa eega, maalintii 29 dhammaatay baanu bishii raadinay, waanu weynay. ilaa iyo fiidkii 3 saac 4 saac khabar baanu sugaynay, waa weynay. bishii waa dhammaystiranay 30 shacbaan 30 baan ku soo dhammaynay. maxaa yeelay waa ku amrannahay siduu nebigu yidhi sal allahu alayh wasalam, samicnaa wa atacnaa, raacnay. shacbaan 30 baanu soo dhammaynay, ramadaanna annagoonan cirkaba eegin baanu bilownay. inkastoo dadii ay dood qabeen, dad baa dood sii qabay oo lahaa bishu maanta 30 ma ahayne 29 bay ahayd. laakiin ilaahay fadligiis waxaa la arkay aragtidii bisha jimcada inay dhalatay, waa la arkay oo walaalo muslimiinoo badan baa arkay. oo halkaa waxaan u jeedaa khilaaf ma la weynayo, wax walboo la sameeyo. adoo shacbaan 30 ka soo dhigay oo ramadaan si saxa u soo soomay baa haddana la hadlayay, laakiin haddana aragti la arag. alxamdulilah. bishii ramadaan sidii oo kale waddadii baanu maray. maalintaanu 29 dhammaynay, muslim meeluu joogayba waa la wada eegay, cirkaa la wada eegay siday caadadu ahaan jirtay. meelana waa laga arkaa bisha, meelana lagama arko. waa maamul ilaahiya. ilaahay dadna wuu tusaa, dadna ilaahay subxaana wa tacaala ma tuso, maxay ahay kuma hagaagaan, mana haleelaan. waana bisha caadada lagu yaqiinay. bishu waa bil yar, waqtigu waa kala duwan yahay, cimiladu waa kala duwan tahay, aragtidu waa kala fog tahay. weligeed caadadaasay bishu lahaan jirtay. waxaan xasuustaa anoo inan yar ah oo saqiir ah oo 10 jira malaha mise 11 jir iyo 12 jir ah, doodanoo taagan, waa ku soo koray, waa ku soo xoogsaday, waa ku afartamaystay. 60maadkii baanu hadda u joogaa oo waa taa meel walba aan ka ciraystay. ilaahay fadligii bishii habeenkii la raadiyey 29aadkii oo habeenku sabtida soo galayay ahayd, waxaa laga arkay meelo fara badan oo caalamka islaamiga ah. waxaa laga arkay Mauritania, oo Mali baa laga arkay, oo Niger baa laga arkay. waa imisa ii tiriyaan? Mauritania, Mali, Niger, Senegal, Tanzania, Kenya, Soomaaliya, Ethiopia. 8 wadan oo 8 wadan oo muslimiintu degan yihiin ah baa laga arkay. annagu dadkii sabtida soomay ama iclaamiyey sabtidu inay ciid tahay, aragtidaas ayaanu ku iclaaminay. maxaa yeelay nebigaana amray salawaatu ullahi wasalaamu calayh, suumuu liru'yatihi wa aftiruu liru'yatihi. waa xadiis cad oo bukhaari iyo muslimna ku jira. taasi dhacday. shacabkii soomaaliyeed meel kastay joogaanna, ama hadday gudaha joogaan ama hadday dibadda joogaan, waa ciideen badankoodu. xataa laandhadoodii xataa waa ciideen. jubbaland ciiday,
puntland ciiday, somaliland ciiday, meel walba laga koonfur maxay ahayday galbeed laga ciid, hirshabeelle laga ciid, galmudug laga ciid. walxamdu lilah alladii binicmatihi tatimu saalixaat. waxaa mulaaxado mudan qaranka soomaaliya, jamhuuriyadda soomaaliya waa ciiday oo ay u hadleen madaxdeedii sare, waana si wanaagsan iyo sharci ay qaateen. hadday ciiddii sidaa u hirgashay baa waxaa dood la geliyey, maxaa bisha maxay ahaydayay loo sheegi waayey 2 saac iyo cisho kadib iyo fiidkii hore, oo bishu loo soo sheegay 4 saac iyo 5 saac iyo 6 saac iyo saamuley. waa cilo runtii meesha taagan. waxaan oga jawaabaynaa, bisha tuulooyin baa horta laga arkay, ama Kenya ha noqoto, ama Ethiopia ha noqoto, ama Soomaaliya ha noqoto, intay Soomaalidu joogto. intayan Soomaalidu joogin waa dhulkaa shisheeya oo Mauritania iyo Niger iyo Senegal sidaan ugu hagaagna waa garan weynay. tuulooyinkii Kenya iyo Soomaaliya iyo Ethiopia xiriirkoodu wuu cuslaa, waa dabagalay. aniga hadda telefishinka fadhiyaa ka mid ahaa dadkii dabagalay oo la hadlay qolooyinka tuulooyinka jooga. tuulaba tuulay ii dhiibtay, magaalaba magaalay ii dhiibtay. intaan sugaynay oo dadkii qaadigii dadkaa dhaariyey raadinaynoo la hadlaynay, oo uu isagu qudhiisu isku dayay inuu naga dhaadhiciyo qaabkii uu maray, raggii inuu maxay ahayday waaniyey oo uu wacdiyey oo uu dhaariyey oo uu doonay qaraabadooda. ragga qaarkood aabbayaashood baa la helay, hebel ka waran, oo la waraystay, ma tukadaa, ma soomaa, xalaasha xalaal ma ka yeeshaa, xaaraanta ma ka fogaadaa. haddana macaariftii iyo dadkii dariska ah magaalada la jooga lasii doonay. waqti badan baanu ku luminay, maxaa yeelay shaciiro weyn weeye oo muslimiinta shacaa'irtooda waaweyn ka mid ah. taasaa keentay markaa in dib u dhacu yimaado. dib u dhacaas oo kalena hadda uguma horeyso bil iclaankeeda ama sheegitaankeeda. waxaa dhacday waqtigii nabiga sala allahu calayhi waaalihi wasalama, nebi maxamed oo nool oo waxyigu soo degayo. hadda masaladan eega, nebi maxamed oo nool oo waxyigu soo degayo ayaa waxaa dhacday bishii nebi maxamed sal alla alay slam intay raadiyeen inay waayeen, oo weliba waxay ahayd bisha shawaal, ciiddaa la raadinayay. 29 bay ahayd sideennii oo kale. 29kii markay dhammaatay bishii la doonay, nebiga sal alla alay slam iyo saxaabadii waa la arki waayey. waa la soomay, ha la soomaa la yiri, sida annaga naga dhacday oo ragga culimmada qaarkood ay yidhaahdeen ha la soomo. markii la soomay waqtigii nebiga sal alla alay slam iyo saxaabadii ay soomeen oo goor barqa ah la marayo, ayaa safar socoto ah magaaladii soo galay. waa xadiisu abi cumayr ibnu anas oo abu daawuud uu soo saarayo. wuxuu oranayaa ana rakban jaaءuu ila nabiyi salى اllahu alيه wasalam yashhaduuna anahum ra'w اlhilaala biاlamsi. ana rakban jaaءuu ila nabiyi salى اllahu alيه wasalam, socoto musaafiriina baa nebiga u soo gashay salى اllahu alيه wasalam. waxay ka markhaati kacayaan yashhaduuna annahum socotadu ra'w اlhilaala biاlamsi, bishii inay arkeen shalay. tallaabadee buu nebigu qaatay salى اllahu alيه wasalam, faamarahum an yuftiruu. nebigu wuxuu amray salى اllahu alيه wasalam inay afuraan. soon ma jiro, barqaa la maraya, soomuuna horay ugu soo yiri. faidaa asbaxuu an yagduu ilaa musallaahum, beritana salaada ciidda tukada oo musallaha aada. maanta iska afura, waqtigii ciidda waa la dhaafay, laakiin berita aroorta hore markaa soo kacdaan oo soo kalahdaan, salaada ciidda tukada. subxaana rabbiy alcadiim. arrinta ugub ma aha, waa arrin jiri jirtay, waa arrin nebi maxamed sal alla alay wasalam xiriir la leh. xadiiskaa sixadiisa iyo culimmadii xadiiskaa sixadiisa ka hadashay. hadda dhegeysta, waa a'immadii shareecada iyo diinta: alimaam alkhataabi, alimaam albayhaqi, alimaam ibn lmundir, ibnu xazm, alimaam الnawowi, ibn اlmulaqin, ibnu xajar alcasqalaani, cabdilxaq alishbiili, intoodaba xadiiskaas waa sugeen.
sheekh naasirudiin alalbanina dee abu daa'uudku ku saxiixiyey, sixadiisana waad aragtaanoo a'immadii oo dhan ba isugu tagtay, waa biyo kama dhibcaan. bisha annagu waa dadaalay, dadaal xooggan baanu bixinay, wadanka gudihiisa Kenya iyo dibaddiisa intaba xoog baanu ku bixinay. waxayna la gaartay 5 saac meelaha bayna la gaartay. haddaan annagu Kenya joogno, culimmadeenna isu tagtay, isu habarwacatay, waxaan baadi goobnaba waxaanu go'aanka ku gaaray ummadda muslimadda ahi in ogeysiiska la gaarsiiyo, oo ayan dhicin berito inay soomaan oo la yiraahdo markaa shalay ciid bay ahayd, maxaa loo soomay? dadaal bay naga ahayd, waana dadaalay, ilaahay fadligiisana ilaahay waa nagu kaalmeeyey annagoo raacayna dariiqi nabiga sallallahu alayhi wa alihi wasallam. waxaa cilo kale soo baxday ummadda Soomaaliyeed, runtii ilaahay khayr ha siiyo, ummad boqolkiiba boqol muslimiina, laakiin waa ummad la dhibay weeye, ummad dhiban weeye. marba dhinac waa looga imanaya. mar waxaa la oranayaa Sacuudiga raacdeen hadday la soomaan Sacuudiga, hadday Sacuudiga ka bayraanna oo ay bishii iyo aragtidii iyo ilaahay wuxuu ka doonay ay raacaanna, waxaa la oranayaa maxaa Sacuudiga u raaci weyseen? Sacuudi ma soomin. waxaa halkan mudan in la isweydiiyo, hal alcibratu بالسعودية أم الدول أم بأفراد المسلمين؟ إلا النبي حديث صحيح وحكي صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. ما الدولة ده مهمة لإيجيا مثل مسلمين تا مؤمنين تا صلاة أو تكتا أو محي إلهي تقانا أركتدو ذا لإيجيا، ولا شك ولا ريبة قف مسلم إن لرادينيو روح مسلم ميلو جوجبا in la raacayo aragtidiisa. hadday dowladani maanta maxay ahayd ay aragtana oo bishii la arko oo shacabkeedii ay arkaan ay ictibaar siiso oo iclaamisana waa la raacaya. taasi waa taa. horta haddii dowlada la raacayo 8 dowladood waataan tiriyey: Mauritania, Mali, Niger, Tanzania, Senegal, Kenya, Soomaaliya, Ethiopia waa muslimiin. anigu garan maayo wax muslimiinta lagu kala dooranayo. annaga hadda maalan oo wahaabiyada la oran jiray Sacuudi iyo Carab iyo lacag ka qaataan oo qolooyinkaas ay maslaha daba dhigteen, dee ilma adeerayaalow haddaan maanta halkaa maray oo aan Nigeria iyo Afrikaan iyo meel muslim uu joogo iyo beledkayagii asalka ah Soomaaliya iyo kan hadda joogno Kenya ah iyo ka jaarka nala aho Ethiopia, muslimiinta haddaanu raacnay ma filayo in aan maxay ahaydayay tallaabo dheerinay, ma filayo. nebi maxamed baa ina amray muslim waa in uu muslim yahay meeluu joogaba. intaasi ayaan isaga soo koobayaa arrinkii mas'alada ku saabsanaa. waxaana runtii maxay ahaydayay bishii caawa dhalatay, bishii caawa la arkay, ma dhalane la arkay, markhaati madoonto ayay tahay inay 3 ahayd. 2 saac bishii taagnayd oo nuurka lahayd oo wareegeedii uu muuqanayay. ilaahay baa idinku dhaarshay bishaasi ma bil koowa dadac maantadan soonka dhammaystiray oo berita ciidaya. dad baa maanta ciiday oo shalay soomanaa, annagu aanu ciidaynay. bisha caawa aad aragteen, Soomaalidu waxay tidhaahdaa bil 3 reerna way kaa saartaa, reerna kuma gaarsiiso. maqrib ka hor baa bisha la arkay. Boosaaso, Mandera, maxay ahaydayay Kajiado, Garissa, cishaha way taagnayd, cishaha way taagnayd oo cirkay ku dheganayd. intaba waa la hadalay, intaba hadda xoog baan ku bixinay la socdo, waa la hadalay. ilaahay fadligii weeye. waxaan runtii cudurdaar ka bixinaya walaalada muslimiinta oo shalay sabtidii ciiday oo waswaaska la geliyey. maxaa yeelay waswaasku ma habboona, mana wanaagsana, waana cudur. laakiin ilaahay waa idin hiiliyey subxaanahu watacaala. dee waa tahay oo cirka waxay oran jireen waa taasoo cirka ka leef adigu. wabilaahi towfiiq, wasali allaahuma wasalama calaa nabiyina muxamedin wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin.